السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برتي يوتيوب كا شاريبو شو تي في oo marba kala socotaan bandhiga Sharibo oo ku dhageysanaysaan wararkii ugu dambeeyay faallooyinka iyo arrimaha bulshada iyo wixii ku soo kordha ee xiisaha leh wararka adduunyada oo dhan. Haddaad ku cusub tahay Sharibo show fadlan subscribe ka hore u saar halkii laawi asxaabtaadana la xiriir iyo like-ta. aad iyo aad baa mahadsantiin in allaalay intii hore subscribe-ka channelka u saartay inta dambe ku soo biiri doontana waxaa leenahay gacmo furo ku soo dhawaada aad iyo aad baana idinkuna u mahadsantiin. alxamdulilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah. maanta waxaan halkan iskugu nimid annagoo abeesha maqaabul waxgaradkeeda nabadoonadeeda cuqaasheeda culamaa udiinkeeda waxaan halkan saaka iskugu nimid hawl jirtay maalmahan oo baraha bulshada aad ugu soo noqnoqotay oo ahayd niman odayaal ah oo ka hadlay Kismaayo. aniga waxaa la yiraahdaa Deeq Aadan Jaamac, waxaan ka mid ahay odayaasha Kismaayo markaan magacayga ku bilaabo. niman odayaal ah ka hadlay Kismaayo sheegtay inay odayaasha kuumada yihiin colaad dad walaalo aan nahay ee Soomaaliyeed iclaamiyay hawsha ayada ah bataatanba guud ahaan waan ka soo horjeednaa. waxaan si toos ah uga soo horjeednaa oo marna aanan qaadan karin ummadda islaamka ee Soomaalida ee 30 sano colaada xun soo martay ee 30 sano ee hadda bilooyin u dheer yihiin ee inta ay ku soo jireen ee aan ognahay wax badan oo kamid ah inay ku badbaadeen cuqaasha iyo waxgaradka qabiilka Soomaalida ah ay ku badbaadeen markii dawladnimada meesha ay ka baxday oo maamul goboleedyada ay ka dhisan yihiin oo dadkii la isku soo dhaweyn lahaa in dadkii maanta colaad loogu baaqo waxaan qaadan karna ma aha, waxaan yeelaynana ma aha. waxaanu sheegaynaa cidda ka hadashay Kismaayo iyo cidda ka horeysay meel kastaba ha ka hadashee ee ku baaqaya Soomaalida inay colaad u horseedaan inay joojiyaan, gaar ahaan dadka Kismaayo ka hadlay. waxaanu sheegaynaa beesha ay sheegeen ee Mariixaan ee sade ee Mariixaan ee Reediini inay wax colaad ah oo naga dhaxaysa aysan jirin. guriga aan xalay ku bariyay guriga ku xiga reesada iska leh, Mariixaan baa iska leh, nin Reediini baa iska leh. wax colaad oo naga dhaxaysana ma leh. waxyaalaha siyaasadda ah ee u dhaxeeya maamulada ee weliba inaan ka qayb qaadana sidii la iskugu soo dhaweyn lahaa aan waajib naga saaran yahay yaan laga dhigin wax dadka walaalaha ah ee deegaanka ballaaran ah ka dhaxeeya wada degan ee walaalaha ah wax u dhaxeeyaan laga dhigin. waxaanu sheegaynaa dadka hadalka ku hadlay haddaan nahay beesha maqaabul ninkii odayga nooga jiray inuusan beesha oday ka ahayn. Soomaalida waxaanu sheegaynaa inuusan ugaas ka ahayn, waxaan u sheegaynaa inuusan nabadoon ka ahayn. beesha maqaabul waxay leedahay suldaan la yaqaano, hadalkaa kumuusan jirin, raalli kamuusan ahayn. waxay leeyihiin 6 nin oo odayaal ah oo nabadoonna ah oo joogta degmada Kismaayo. chairman aniga kumaana jirin codkayna nin ku hadlaya hadalka muusan dhihin. waxaan u sheegaynaa inaanan hawsha wax gaar ah u lahayn. beesha reesade ee Mariixaan ee Reediini ee hadalka uu ka dhacay waxaan naga bixinaynaa raaligelin. waa walaalahayn, raaligelin baan ka siinaynaa. ma naga istaahilaan inaan colaad u dhaxaysa qabaa'ilada hadda annagoo cuqaasha aan hurina nagama dhaxayso.
hadday ayaga yihiin iyo kuwa ka horreeyo geda ka hadlay hadday yihiin iyo kuwa ka hadlay gobollada kale hadday yihiin midna waxaan u sheegaynaa inaysan dadka colaad aan lagu ifinin, dadka inaan colaad loo horseedin, dadka nabad in loogu baaqo. dadkan waa dad walaalo ah, colaad way ka soo daaleen, waxaa keli ah oo deeqi karta nabad. marka insha allahu waxaan u sheegayaa oo mar labaad baaqayna aan u jeedinaynaa soomaali weyn, dowladda federaalka, maamul goboleedyada, dadka walaalaha oo deegaan kasta isla degan ee colaadaha ay ku jiraan inay ka qayb qaataan dadkaas sida loo heshiisiin lahaa. dadku waa walaala, waxaan aaminsannahay inay dadkaas aysan wax dhib ka jirin. laba isla dhalatay iyo laba seedi usaa iyo laba sodog usaa iyo laba abti usaa way dadka. marka waxaan hadalkayga ku gabagabaynayaa insha allahu inay wixii dhacay dib dambe aysan u dhicin baan rajaynaynaa insha allahu. bismillah. waxaa la yidhahaa nabadoon daahir xuseen cabdi, waxaan ka mid ahay guddiga nabadoonnada beesha qabiilka muqaabul ee jubbalandi. waxaan halkan u fadhinaa oon rabnaa inaan ka hadallo hadal xun oo maalin dhaweyta la mariyey miidiyaha. dad sheeganhaya dhaqanka kuumade, dad sheeganhaya dhaqanka muqaabulna ay mariyeen. hadalkaasi oo aflagaado iyo colaadba ku abuurahayay qabaa'il ka mid a qabaa'ilada soomaaliyeed, qabaa'ilka sade, mareexaan, reer diini. anigoo ku hadlaya afka dhaqanka muqaabul waxaan leeyahay dadkii shirkaa ka hadlay ee colaadda iyo aflagaadada hawada mariyey dad kuumade matalana ma aha, dad muqaabul matalana ma aha. annaga muqaabuluna maanaan dirsanin, nimana matalan. waxaan soomaali iyo ciddii la aflagaadeeyeyba u sheegayaa, qabaa'ilkii la aflagaadeeyeyba dadkaasi dad muqaabul iyo kuumada midna matala inaynan ahayn. marka koowaad. marka labaad, aflagaadadii hawada la mariyey waxaan ku bedelaynaa qabaa'ilka sade, mareexaan, reer diini, raaligelin, sabeen, walaaltinimo inaan hawada u marino oon la daba soconno mar kastoo ay wax xuna hawada mariyaan. sabeenna waan ka xidhnay, qabiilkiina waan ugu hoyanay, haddana hawada waxaanu marinaynaa warkoodii war bogsiiya. waxaan leeyahay anu raalli ahaw, reer diiniyow raalli ahaada, walaalahana tiin noo bogsooda. warkaasi nimanka ka hadlay idaacadaha hadduu muqaabul matalahayay ma matalo, hadduu kuumada matalahayana maa naadirsanin oo nama matalo. ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay dadka dhaqanka sheeganaya ee miidiyaha lagu faray kana hadlahaya colaadaha qabaa'ilka dhexdiisa inay joojiyaan. dhaqanku waa ka xaaraam inuu colaad abuuro, dhaqanku waa ka xaaraam inuu afgodbeed la yimaado. dhaqanka waxaa mubaax u ah wax kastoo xun oo arka inuu qariyo, wax kale oo wanaagana uu ku bedelo. aniga oo ku hadlahaya afkayga iyo ka dhaqanka muqaabulba waxaan leeyahay warkaasi waa war aan annaga naga imanin, waa war aanu lagu metelin, waa war aanaan shuqul ku lahayn, waa war xun, war dhaqanna ma aha. wax colaad ah oo qabiilka mareexaan la yidhaha ama sade la yidhaahdo ama iyo kuumado ka dhexeeyo colaad qabiil ma jirto. wixii siyaasad u bukana annagu siyaasiyiin ma nihin, siyaasadna kama hadalno, dhaqan baana